السلام عليكم كسو دوادا فاتوش فاميلي channel halka aan naga daawanaysaan waa channel keena كسو دوادا programkii guusha qoyska ayaan maanta ka hadlaynaa waxa uu noo marayay qaybtii technology especially sida ilmaha looga celiyo atimaanti dhoweed aan ka hadalnay 6 qodob oo isticmaalo research kana uu proof gareeyay in ilmaha looga celin karo TV-ga hadii aad si fiican u wax isticmaasho marka maanta waxaan rabaa in aan la wadaago afartii kala hartay soo wada dhawaada ma sha Allah iyo sidoo kale in aan la wadaago taa in dhahay activity-ga ilmaha aad ku triggerin kartid waxna ku bari kartid TV-gana iga celisa oo isticmaalo iyo waxyaabaha aan isticmaalo iyo sidoo kale meelaha aan ka soo gatay waa faa'iido lagu daray marka waxa inoo mareysay 6 qodob baan ka hadalnay maanta qodobkii 7aad ayaan toos u abaarayna qodobkaas 7aad oo ah oona arkay side effect-giisa dad badan oo ilmaha markii kaba soo qaad hawliga u isticmaalin cunuga inaad TV-ga markii aad soo kacdid instead of cunuga aad u sheekayn lahayd su'aalaha uu weydiinaya ka jawaabi lahayd inaad TV-ga iskaga daarto oo tiraahdo sit there don't talk to me some people baa isticmaala because waxay rabaan cunugan inuu ka mashquulo laakiin wax badan ayaa miis gareynaysa taasoo ina cunugaagi lisan gareysid ina cunugaagi su'aalo ku weydiiso uu ku weydiiyo uga jawaabtid iyo inaad cunugi baaranti gareysid oo waalid aan noqotid ayaa miis gareynaysa oo qodobkaas ay isticmaaleen ha uu isticmaalin TV-ga wax cunuga ka mashquulaya isla fahane TV-ga ha uu isticmaalin wax cunuga ka mashquul ilmaha waxa la rabaa intaad u wacdi حتى عن كيرada quraacda marka u duweysid ina iskaga sheekaysid hooyo saasame hooyo wax yaani adiga cunug yiriska ina u sheekaysid su'aalu ku weydiinaya hooyadii aan mashquulsanayn iyo aabihii aan mashquulsanayn ayaa ka qabtiri kara cunugaas su'aalihiisa inuu ka jawaabo oo markaas sidii cunuga brainkiisa waxay rabaan iska ka weydiina waa arday ilmaha yarka so waa ina patient u leedahay deganaansho inaad uga jawaabi karto sometimes waa la soo cala darajada istaag shimbirahaas mid kalarkaas bay waqta mid taas bay waxa la rabo soo waa ina hooyo tahay degan aabe degan oo inta istaagtay any question oo cunugaas ka qaba aad ka jawaabtaa soo cunuga brainkiisa aad dhismaysa still into TV daawada oo saas ahaan la maanta oo dhan su'aalahaas aad weydiinaysa adiga hooyada aabaha raa sometimes inaad su'aalaha adiga iska weydiiso cunuga umada yaani waxaad ka rabtaa maskaxiis inuu hadlo leh ina su'aalo weydiiso so instead TV aa u shileeyaa adiga noqo hooyo iyo waalidka adiga su'aalahaas jawaabahaas ka jawaab hadii kale TV-ga ka jawaabay waxyaalo badan uu u geyn karaa sidoo kale qalabka sideedaad dad badan ayaa isticmaala cunuga distraction waxa la inay u isticmaalaan TV-ga kaba soo qaad waxay rabaan cunugiba ama ooyay ama wax buu sameeyay soo iPad-ki ama telefoonki baa loo dhiibaya soo waxay uga jeedaan inay ku distract gareeyaan cunugan oo cunugii uusan oohinti ama sii wadin ama waxa uu weydiina uu sii wadin oo iga aamus baa la waa la isku shut up gareeyaa haddaba ka digtoonaada ha isticmaalin in hadaa waalitahay cunuga distraction ha u isticmaalin inaad ku distract gareysid kaba soo qaad Soomaali badan ayaa dabeecadaas leh waxay sameeyaan cunug bay wadayaan suuqay geynayaan waxay rabaan inay cunugaas uusan u dhaqmin sidii ama ilmaha ay ordayaan ama wax telefoon ilmo wata arkay din la that's a distraction because ma rabaan cunugooda inuu يعني explore وسميه explore كره وحيابها ماشي كدعاء أما وحصلنا تلافن بعنق ثاس كله وكوينانا يا تبتاس بوديا ورجعنا كم بقولون صح أو استعمالا إن عنق كل distract جريسي تلافنك عنق وحكلان استعماله nothing in their bedroom ما هو استعمال كرتيد عنق إناد وقرأت TV guriga qolkiisa aragtay ama TV aqalkaaga dhigtay inuu teleefankaaga intuu la baxo qolkiisa ku daawado ama iPad-ka qolkaaga ku daawado tiraahdo waxyaabo badan ay cunuga
ku abuuraysaa waxay ku abuuraysaa inuu barta alone time-ka waxay ku abuuraysaa inaadan la hadli karin hadhow waxyaabo badan adigu markaas waa iska sii jeedina go to your room laga yaabaa tiraahdo iPad ula dirtay laakiin ogow inaa waxyaabo badan oo baarantinimo aamis gareynaysid inuu cunugaas u baran doono inuu qolkiisa ku jiro inuu soo waalidkiisa la hadlin inuu walaalihiisa la hadlin so no TV in their bedroom or not TV in your bedroom adiga example ki koowaad baa inaad TV dhiganin hal TV hadaa lacala ka maarmi weyno waxa waaye living room ka daa set telefoon hadaa cunuga hatta haday dhacdo cunuga ina iPad wax ka baranayo ama iPad aa u ogolaato inuu isticmaalo time kiisa qabo time u yeel barna inuu ku isticmaalo public place because public place waxa kamid ah living room waa public waa guriga dhan xaafada dhan baa isticmaalay wuxuu baranayaa in uu noqdo qofta guriga telefoonka inaga ku isticmaalo uusan la ogolaan meel kaligiis inuu alone kula isticmaalo waxay kugu qasbaysaa inaadan ogeyn as a parent awal washid cunugaaga muxuu daawanayaa kaba soo qal cunug yar baa oo ogolaatay 6 jir 7 jir inuu qolkiisa maanta telefoon ku jiro maxaa ka ogtaa wuxuu daawanaya ay cunuga by accident wax iska riixi kara stranger buu wacday stranger buu u galay waa aragtay ilmaha website iska taaban so make sure no bedroom inaadan qolka waxba ku isticmaali karo cunuga marka saas u yiraahdo saas uga warqab waxa kale soo baxay oo waxyaabo badan ah in badan hada ka horna mawduucan soo saara uga hadlay ereyga no wala cunuga hadii uu ooyo inta dabacad inaa ka restrict gareysa ama ka yareysid aaladan la isticmaalayo ama computer ama telefoon ama iPad ha ato uu ooyo waa ilmo yaro 4 jir waa ilmo yaro 3 jir waa ilmo yaro 2 jir waa ilmo yaro 5 jir waa ina dhihi kartaa abo finish ama abay finish your cry marka soo dhameysatid no oo hil isku ooyna cunuga haduu xanuunsan yahay oo intiisa is acceptable haduu meel ku dhacay wax ay xanuunjinay acceptable hadii yacni wax oo hintu waa communication is okay waa communication laakiin hadii cunugaaga intuu wax macna dara ah intuu uu ooyo aad tira hooyo iPad-ka daas ya waxa waaye waalidnimadaadu waa dhiibta asaga u dhiibta ma fahmi so waa ina cunugaaga markuu uu ooyo wax aqlaaq dara waa ina dhihi kartaa no waa ina dhihi kartaa aadan u ogolaanin in uu iskaga ooyo bila macna daro inaad u samaysid aad raadid oo hinta finish garay sometimes ereyga no ilmaha yarka way ku fiicantaa because waxa waaye waxa uu baranaya inuu wax kasto adduunka iska heli karin waxa uu baranaya waxa la yiraahdo self control naftiisa inuu wax markii loo diido ama uu waayo inuu control sameeyo oo garto ina waxa lana heli karo lana weeli karo laakiin cunuga yarka marka uu korayo hadaa bartid waxba u diiday oo iska dhaw aad wixii u dhiibtid that's not because cunugan is growing cunugu koraya cunuga markuu korayo waa waxyaabaha caawinaya naftiisa inaad bartid inuu wax kasta iska heli karin waxa ku tir toy buu ku dhahay hebel toy ii soo gad suuqaale Soomaaliyeed oo dhaqankaas waa very common buu ka dhagaya suuq bay hooyo ilmo u wadaysaa waxa uu rabo uu ku soo dhagaya dadkaas iyo qayradaas ka baqaysa ma la hadli karayso wuxuu rabo cunugu ku dhaqmay cunugaaga hadii aad bartid inuu wax kasta uu iskaga dhaga aagidid meaning waxa jira aalad nagu jirta oo bini aadanka markuu korayo ay tahay inay barato inaa waxba la heli karin soo taas ayaa ka hadlaynaysa hadhow dadka lama dhaqmi karo wuxuu u moodayaa wax kasto codsaday in sanka laga soo geliyo oo adigiiba gurigaagiiba kuma aad soo baran akhlaaqda ah no it's no mean lama heli karo hooyo maanta waxaas iigad maanta waa la heli karaa waxaas ma la heli karo wuu baray yiri wuu baranaya because waa wax uu isticmaali karo hadda ka research ayaa la sameeyay oo ah waxyaalaha la dhaho self control cunuga inuu is control karo waxa way iskuulka marka dhigan jirnaa ay arki jirnaa daawisiin jiray cunug baa meel wax loo dhigaya laba ilmood ilmahaas waxa la barayaa cunuga inuu wax iska control karo saasana kamid ah xagaas ay ka timid waa ina waalid guriga ku soo barbaaraysa markii cunuga la yaraa waxa inuu isku ooyin waa ina bartaa cunuga no TV it's no kaba soo qaad waqti ba u dejis waqtigaas ka hor marti inuu daar same ilmaha yiriis waa igu soo ku sameey way maanaya 12 ban TV raanay waxa laga 11 inuu imaado hay ma sameyn kara waxaan leeyahay no is what time is it 12 TV kormeela daara 12
maxaad weydiinaysaa marka soo uu baranaya control naftiisa soo u control la ayuu baranaya soo waa inaad bartiin taas ayaa noogu dambeysay inaad dhihi karto cunuga no aniga markasta waa isticmaala waalidka Soomaalida please isticmaala eragaas ilmaha yiniiska markay gurigiina ku soo koriyay hadii cunugaaga aad intaad u wadi maanta grocery waad la sii hadlaysaa waa la sii balamaysaa toddlerka 4 year 3 year hadaad intaan galo bahalkaas aad ku dhigtay wax ama waxay dhigtan ku soo qabanaya baawurkan kugu soo riday adeega xataa waa soo tagaysaa waad baraysaa akhlaaq buu baranaya akhlaaqdaasna markuu weynaado ayuu ku korayaa waa wuxuu guriga ku soo barto waa waxaan dhan anaka aan sameeyna ma ahan wax aan iskaga dhalana ma ahan waa wax skill marka yareed ah soo sameeyay oo soo barat marka ilmahaaga bar very important bay ku tahay inaad ogaatid wax aad maanta ku sameeyay markuu u yaryahay inuu kula sii kori doono wixii Ilaahay u qoro waa meesheeda laakiin inaad very important aad ka mid tahay haddaba waxaan idin sheegay last week waxyaabaha aan isticmaalo oo TV-ga inuu ilmahayga ay sadaawan interestina ay ku sameeyeen oo activity-ga education-ka ah oo aan isla sameeyna in la share gareeyo iyo meelaha aad ka soo gadan kartiin soo baby-ga ayaan ku bilaabaya kaba soo qaad baby-ga waxaan u isticmaalo waa kuwaana maartaysi bahaladaas waa baby yaa loogu talagalay cunug inuu afka ka dilo looguma talagalin waa baby yariisa inaad wax u aqrisid maskaxdiisa sheekaysid la hadashid baby-gu waa important waxaan ku dhahay quraanka kitaabka soo qaadan karto oo aqrin karto soo wax oo sad gool ma jiro laakiin cunug yarka markuu yinishka yaa u dhasho oo bilaha yarka jiro halkaas u dhiibaysaa gacmihiisa wuxuu sameynayaa wuxuu ka shaqeynayaa ku baranaya sida wax loo qabto waa buug cunuga ma hard garanayso dhibaato uma keenayso xabada ay tusaya waa buug camal baa loo rogayaa waa arkaysiin saas baa loo rogayaa kan wuxuu ka hadlayaa hadda colors buu ka hadlayaa akaasa colors buu ka hadlayaa taasoo cunug yarka gacanta iska haysana waa u dhaqi kartaa haduu soo qobalaan diga iska ridi kartaa gacanta ku dhaqi kartaa wakaasa taas waay sidoo kale asagii camal oo kala waay kan wijidido wuxuu ka hadlayaa vegetables qudaarta cunug yarka marka la joogto oo aqrinaysa hey tomato hey sasaleysa corn taasoo cunug yinishka baby waa baby-ga kaasa uu isticmaal ayadoo numbers cunug yarka 1 2 3 cunug waxa uu wada inuu fahmaynin laakiin cunug yariiska uu ku watch kareynaya maskaxdiisa ayaa koraysa waxa aad sameynayso wuxuu ku baranayaa sida wax loo grab gareeyo oo wax loo qaato gacanta lagaaga qaato wuxuu baranayaa markuu faraysto sida wax loo rogo baalasha loo rogo yaani afkiisana iyo waxa laga ilaalinayaa wuxuu isku dili karo ma fahanti uu isku dili karo marka ka soo gata Amazon baa lagu gadaa ka soo gata baby-ga oo isticmaala kaas kanoo kale hada baby-ga iskala asagana sidoo kale waaye asaga uma dhiibis laakiin ada u aqrinaysid suma aragtid baby-ga yaasha buugtooda waxa lagu gartaa malahan too much qoraal ma so pictures ka la rabaa pictures ka bisa laga dalay ma fahan 2 year kaygana waa aqriya 2.5 waay waa aqriya asagana pictures waay pictures badana wakaasa jidido waxa waay wuxuu ka hadlayaa tunka time for bed alla taas waay kaasna kuwa waaweyn oo kale oo 4 jirka iyo 3 iyo 5 jirka waxaan bahaladaana soo gata hatta 2 year and half way isticmaalaan waa kuwa wax lagu qoro taas dhahaysa cunuga maanta uu markuu yiriiska yihiin ku bilaaba soo wuxuu barnaa sida magaciisa loogu qoro kulligood hal mar soo gada gadaal lacagteeda dhanaamsana qabta saasa saddexdooduba waa u soo gada hadda kan yiriiska waxa waay iyada waxa ma qori kartaa shay just waxa waay 9 bilood leeyahay marka saddexda kala u soo gada waa inay make sure garaysa cunug marka u soo gadaysid ina ilmaha dhan u soo gadid because cunugu isku masayraya marka kulligood waxa kuwaano badan oo guriga kala nuuciya yaala hadda kana inay tusaaya saasoo kala kaasna waa isticmaalnaa waxa kale isticmaalnaa bahalada wax ku qoran yihiin oo kalena waa isticmaalnaa kuwaan ma arkaysaan waxa la dhahaan waxa san waxa la dhahayaa cat cunug wuxuu sameeynaa meeshaas uu ku qorqoraya ku saaraya qalin waa hadda waxa soo jido gareega waa ika yaani colorkaan si magic gareena marka laakiin bahal la saarayo jiro c a t la saaraya jirta marka saasay waxay sameynayaan ku waxayna ku qorqorayaan oo yaani education waxyaalo badan soo gadan kartaa oo waxa weey Amazon ku jira meesha galaysa cunugka saddeexdiisa ku qoraysa sidoo kale waxa isticmaala big one kan kaas waa gurigeena dhan baa laga isticmaala oo waxa sameeyna ilmaha aniga u fareysta marka waxbaan kula qoraa waxbaan ku qoraynaa oo ka sawa qalinkeedii waa ka tirtiri kartaa waa kaasa
saas waa ku ka tirmaaya marka waxaan sameynaa tan boardkii waaye I think meelahan oo lagu dhegsan karaa oo reminder ina wax ku ilmaha ugu qortido reminder oo isticmaali karta maxaa la dhihi jiray sida kale oo isticmaali karto oo ah ilmaha ina wax ku barto marka anaga gurigeena waxa ugu badan yani TV adiga waa isdeynaysiina ku dhaay because cunugiyaas Allah marka toyga kale ilmaha hooyooyinka markay toy soo gadaan toyga adiga cunugii toy soo gadayso waa ina soo gadaa toy educational so kama soo qad amisa waxa ku qoraysa educational toys for toddler 5 year haduu ya da'da ku qoray 4 year haduu ya da'da ku qoraysa kulli da'da ku wada qoraysa ma fahad so asaga ku soo sameeyna so marka cunugii hadiyada ugu soo dhigi karta toy u soo gadaysa still laakiin waa education so asaga kuma uga yaani wala sira ma fahad so asaga toys hooy kana ku soo gada laakiin waa inuu wixii wax macno u sameeyna u yahay cunugii wax ciyaar kale iyo taraagi waxas waa haysanaa laakiin waxa ugu badan oo gurigeyga aan gado oo lacag ku bixiyo waa toys for education waa isticmaalo يعني الله أنا لكن يعني time كوقتك كوقتي محمد كلا دوبا وسك صعنايا مركا تانا very important هو هذا قالين كان بدن بعد سوق قدر نسا قالين كان وحالي رادا وحسمينا يا ودق كرا ما كرس كان ما فهمت وجست ودق كرا وحواي استيك وسمينا ما دركو ذو كهلابو مركز عنق وحوسق قدر نسا كان لا دق كرا واشبل ما كرس بقو كل سماشة وكوسو بحياة everywhere دكان دايتكتي واشبل ما كرس أفقر وحول انترو كاغت ترمى هدي العل عنق يريسكها ودركيس كهلايو توير iyo halka dad ku dhigo dharka iskaga halay dharka uu ka dhaqmay markii laandriga lagu guro uu ka dhaqmay sidoo kale guri hadaa degan tahay oo la tirtiri karo darbigiisa haduu kaaga halay darbigu waa iska masaxaysan waxba kaaga ma halayna laakiin make sure wuxuu leeyahay asagoo waaweyn oo iskuulka loo sameeyo iskuulka loo isticmaalo ama dadka waaweyn yani oo la dhaqi karin iyo asagoo washable la dhaqi karo mid kale marka wax kasta oo ilmaha u soo gadanay sida qalimaan crayon waxaas dhan make sure inuu dhahay waa non toxic waxa la inuu leeyahay sunta inuu salahayn oo sunta aalada ay ka maqan because cunug waxa laga afka inuu gashto kuwa weyn xitaa ma ka dhowri karti soo marka make sure in asaas mid hadii waxyaabaha educationka abadsatid oo cunugaaga u interest garaynayo mid kale waxay ku fiican tahay hadda waa iska wadi karaa mawduucan ilmaha daan waxa laga yaabaa ina hours ka shaqeyn karo because that's my passion ina ilmaha la shaqeeyo ina dad wax u faa'iido marka waxa sameynaysa cunuga u soo gad la fariiso u qoro ha haleey ha waxay waxa ay ka anfacaysa iskuulka cunugaaga markuu aado asagoo yiriisa hadaa qoraalka iyo waxaas ku bilowdo iskuulka markuu aado magaciisa perfect waxaan ku dhahay bye dadka ilmaha yarka Soomaalida badana guriga hooyooyin badana ma sha Allah perfect away jiro laakiin waxa ugu badan hooyooyinka aan ilmaha aan guriga waxba kula sameeyeen cunugi kaliya ku haleynaya xumaan kama ahan cunugoodu way jecel inay wax barto laakiin waxay ku haleynayaan iskuulka inuu wax baro you are number 1 macalinka you are the first teacher waa ina ka faa'iideysataa because cunugaaga markuu yar yahay markuu soo hadaaqayo markuu wax baranayo markuu hadal baranayo adiga la joogtid adiga ayaa maskaxdiisa dhisi kartid adiga ayaa Ilaahay wuxuu kugu shubay ku shubi kartid cunugaaga oo u faa'iideyn kartid iskuulku is just like waxa wadadu jeexa bisla laakiin hooyadu waa macalinka wax bara homework guriga markii iskuulka laga soo qaado hooyada waa wax barta macalin homework kaaga ma shaqayso make sure inaad ka faa'iideysatid sidoo kale hooyooyinka mawduuceenu ku xigi doona next time insha Allah waxaan tusayaa hooyooyinka maadaama ay badan yihiin dadkeena dagaal iyo wax iyo dhibaato ay dhacday oo ay ku badan yihiin hooyooyin badan oo waxba aqrin karin aabooyin badan waxa aan tusayaa sida ugu fudud ee cunugaaga adiga oo waxba aqrin ayaad ugu aqrin kartid guriga oo cunugaaga yiriiska babyga markuu dhasho 2 sano markuu jiro 3 sano marka cunuga inta adiga guriga kula joogo siyaabaha ay uga faa'iideyn kartooy soo qaadan kartid aad cunugaaga wax ku bari kartid because siyaabo badan ayaa jiro oo ilmaha wax loo baro wad ku mahadsantiin daawashadiina I hope in aan mawduuceena ka hesheen share hadii aad ka hesho like waxaan ku iri saaxiibadaada la wadaag adiga wixii ku shaqeeyay ii soo qor
kaligay ma ahan mawduuca way la daadiinaysiin waan jeclaa dadka marka comment iyo soo qoran waxyaabihii kuu shaqeeyay ay waxyaabaha videogayga aad ka faa'iiday dad badan baa videoyin kor soo comment gareeya baa waxaasan ka faa'iiday videoyin faa'iido leh marka waa mahadsantiin cajirkii waan dheereeyay thank you next time intaan ka kulmi doono